بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا كانال كيني SMCC داوديال maanta waxaan ka hadlaynaa cudurrada laga qaado jimicsi la'aanta socodka ama dhaqdhaqaaqa jirka waxa uu qayb lixaad leh ka qaataa habsami u socodka wareegga dhiigga dhinaca kale qofka haddii uu dhaqaaqiisa yar yahay oo uu waqti badan istaaga uu ku qaato waxa uu ka dhaxli karaa cudurka loo yaqaano xinjirowga xididdada dhiigga cudurka xinjirowga xididdada dhiigga waxaa afka qalad loo yaqaanaa deep vein thrombosis waxaana loo soo gaabiyaa DVT waa xaalad caafimaad darro oo halis ah waxa ayna dhacdaa marka ay xinjirow ku samaysmato xididada dhiigga qaado waxa ay caan ku tahay badana oo lagu arkaa xididada hoose ee lugaha walow lagu arki karo dhammaan xididada kale cudurkan waxa ugu badan oo sabab waxa ay kala yihiin dhaqdhaqaaq yarida sida istaaga badan ama fadhiga badan dhaawac soo gaaro xididada dhiigga iyo qalniimada lagu sameeyay xididada dhiigga waa maxay calaamadaha aan ku garan karno in ay jirto xinjirowga xididada dhiigga barar in lagu arko lugta ama qayb waliba ay ka jirto xinjirowga xididada qoorta oo qofka xanuun inuu dareemo qofka markii uu dhaqaajiyo lugta ama gacanta ay ka jirto xinjirowga xididada qofka ay garbaha xanuunaan meesha oo guduudato ama buluug noqoto qofka oo wareer dareemo qofka oo istaag ka dhaco iyo qofkii oo aan ku aragno in ay ku adkaato neefsiga haddaba yaa halis ugu jiro cudurkan waxaa halis ugu jiro dadka da'doodu ay ka weyn tahay 50 sano oo aan waliba aan si joogto ah u sameeynin jimicsi sidoo kale dadka isticmaalo muqaadaraadka halis ayay ugu jiraan sidoo kale waxa halis ugu jiro hooyada uurka leh iyo hooyada qaadato daawooyinka lagu kala fogeeyo ilmaha sidoo kale waxa halis ugu jiro dadka aadka u cayilan haddaba daawade sidee ayaan uga hortagi karnaa cudurka xinjirowga xididdada dhiigga si joogto ah inaan u sameeyno jimicsi tusaale in aan maalinkii 10 daqiiqo soconno sidoo kale miisaanka haddii uu badan yahay inaan iska dhinno qofka caafimaadka qabo oo qaangaarka ah waxaa laga rabaa inta u dhaxayso 60 ilaa 80 qofkii haddii uu 100 ama 120 ama 130 uu ka bato waxaa ku imaan karta xaalad caafimaad darro oo halis ah sidoo kale waxaan uga hortagi karnaa in aan iska ilaalino istaaga badan iyo fadhiga badan in aan maalin waliba cabno biyo badan mahadsanidin